mudana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh mudana yaali marwooyin waxaan halkaadii ku soo gudbinayaa aqrinta koowaad ee hindisharciyaadka socdaalka anagoo raacaya waajibaadka wasaaradda amniga ee abuuridda hay-ado leh siyaasado iyo shuruuc cad oo lagu hagayo waajibaadka iyo howl maalmeedka hay-adda kasta oo hoos timaada wasaaradda amniga dareensanna baahida loo qabo casriyeenta la jaanqaadka shuruucda socdaalka caalamka iyo ilaalinta karaamada sumcadda baasaboorka Soomaaliyeed waxaa laga maarmaan ah soo gudbinta xeerka oo sare u qaadaya kaalinta socdaalka ee qaranka mudana gudoomiye ugu horeyn ujeedada hindisharciyaadkan waa nidaaminta habraaca quseeya socdaalka immigrationka sida soo gelista ka bixidda joogista iyo degista dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed hindisharciyaadkan wuxuu ka kooban yahay 9 cutub oo si kala baxaya 47 qodob qodobka afraad ujeedooyinka iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed waa hay'ad heer federaal ah toosna hoos timaada wasaaradda amniga gudaha hay'adda waxay u gudbinaysaa waajibaadkeeda shaqo si waafaqsan qiyamka iyo mabaadi'da ku qeexan dastuurka qaranka sharcigan iyo shuruucda kale ee uu leeyahay dalka howlaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha si gaarka ah u leedahay waxaa ka mid ah hay-addu waxay mas'uul ka tahay maamulka xuduudaha ee la xiriira dhammaan dadka soo galaya ama ka baxaya dalka inay bixiso dalku joog ku meel gaar ah iyo mid rasmi ah la siinayo ajaaniibta ama shisheeyaha imaanaya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxay mas'uul ka tahay inay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka ku sugan u soo saarta baasaboor iyo dukumeenti kale ay ku safraan hay'adda socdaalka jinsiyadda iyadoo gudanayso waajibaadkeeda kaashanaysa wasaaradda amniga gudaha waxay la shaqeynaysaa wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dowladda si ay gacan ugu siiso inay qaataan mas'uuliyadooda ku aadan sharcigan ama xeerkan hadda aan keeno maanta qodobka 11aad wuxuu qeexayaa noocyada kala duwan ee ogolaanshaha soo gelita iyo joogista qofka ajnabiga ah sida uu qabo sharcigaani qofka ajnabiga ah wuxuu soo geli karaa ama joogi karaa dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed haddii uu haysto mid ka mid ah ogolaanshahan ogolaansho dalxiis ogolaansho jid maris ama transit ah ogolaansho waxbarasho ama cilmi baaris ogolaansho sabab gaar ah ogolaansho soo noqnoqosho ama multiple visa qofka hadduu haysto ogolaansho joogitaan muddaysan ogolaansho deganaansho rasmi ah ogolaansho ganacsi wixii la mid ah qodobka ugu dambeeya marka qofku uu haysto uu joogi karo waddanka ogolaansho shaqo qodobka 33aad noocyada baasaboorka iyo dukumeentiga safarka noocyada baasaboorka iyo dukumeentiga safarka sida uu qabo xeerkan baasaboorka waxaa ka mid ah baasaboorka caadiga ah ama ordinary passport ee lagu soo saaro qofku markuu codsado qofka muwaadinka sidoo kale baasaboor howleed ama adeeg service passport oo lagu soo saaro markay codsadaan shaqaalaha dowladda sidoo kale baasaboor diblomatic ah intaas waxaa dheer dukumeenti safar oo degdeg ah oo loo sameyn karo qofka muwaadinka markuu rabo inuu waddanka dib ugu soo noqdo ama ka baxo oo arrin degdeg uuna ka gaarsiin karin baasaboorka inuu samaysto dukumeentiyada safarka qaxootiga ayadana aan ku soo darnay oo loo saaray qofka qaxootiga markuu helo deganaansho uu ku joogo waddanka Soomaaliyeed asagana baasaboor loogu talagalay la siin doono gudoomiye waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiq xildhibaanada aan la wadaago sharcigan intaan ka shaqeynaynay waxaan la tashin la sameynay ama kulan la sameeyay ilaa 7 kulan ka dhacday 2 heer federaal ah iyo 5 maamul goboleed la soo shiray muddo laga soo shaqeynay sharcigan waxaan rajeynayaa aan jeclaan lahay maadaama wax badan noogu xiriiran yihiin inay guddiga qaabilsan arrimaha gudaha iyo amniga oo hawshan u taalo inay noo dejiyaan xildhibaanada noo ansixiyaan waa maasiti